aqoon-yahan Axmed Siciid oo kamid ah aqoon-yahanada dhalinyarada ee gobolka Awdal ayaan maanta wax ka weydiiyay sida uu arko khilaafka xisbigan waanu ognahay mas'uuliyad ahaan iyo manfac ahaanba waxay reer Awdal ku qabaan waynaanu garan karaynaa halka uu maanta reer Awdal kaga jiraan mansab ahaan hadhowna loolankiisu wax la isku hirdiyo lagu kala tago oo uma arko sida darteed marka waxa ka jira xisbiga loolanka malaha ka jira wuxuu ku egyahay kursiga afraad buu ku egyahay kursiga afraadna waxa ku hirdamaya waa laba nin oo midna madaxweyne ku xigeen yahay midna wasiir yahay oo labaduba ay xisbiga imka ka wada tirsan yihiin hase ahaatee laba anuude uma arko wax dan reer Awdal yahay meesha inay taalaan uma arko laakiin dan labada shakhsi uu ku kooban oo midna uu xusul duuban yahay midna uu xiriirsan meeshiisa inuu xajisa rabo ba meesha yaala wax de saameyn ku yeelan karo gobolka oo gobolkuna u kala tago de kuma arko aanu meesha mar kale waxaan wax ka weydiiyay halka ay ku dambeysay awood qaybsigii dhalinyarada iyo bulshada gobolka Awdal ay ka dalbad awood qaybsigu meel fiican buu marayaa dhalinyaraduna ka dhalinyarada si fiican baan u wadnaa anu awood qaybsiga aanu rabnay waa kii aan hore u sheegnay bayaankan aan ka soo saarnay halkii baan ka taaganay mowqifan waxaanu yeelinaa marka wali waxaan yar muuqataa in xukuumaddu ay ka dhigaadeegayso dadkii tabanayay ay message-koogii ay dhigaa ka furasatay kulli wax kastoo imika si fudud wax fudud loo maleeyay wuxuu ku dambeyn doonaa wax aan dabadiisa la gaari doonin wixii ka yimaada marka xukuumaddu baan mas'uuliyadeeda u celin doonaa hadhow hadii ilaahay hawluhuna sidii bay u socdaan wanka tashwiinaha xisbiga kulmiye iyo waqti xadirkan taagan ay hadalhayntiisu badatay kolka ma la soo karaa arrimihii awood qaybsiga waxa laga mashquulo loogu soo jeestay sidii loogu kala bixi lahaa kursiga afraad ee xisbiga kulmiye ee loolankiisu taagan horta wasan hore soo sheego kursigan afraad ee labadan ku tartamayaan waa laba shakhsi weeyaan dadkii gobolka ma mansab gobol oo ugu tartamayaan meesha ma yaalaba sida darteed marka waxa meesha yaalay waxa weeyaan labada shakhsi in lagu milmaayay anu ceeb weyn baan u arkaa ka gobol ahaan oo dadku ilaahdaan hebel iyo hebel la kala xigsado anu ceeb weyn baan u arkaa waa laba shakhsi haday ku soo baxayaan iyo haday waayaan taas waa awood qaybsigana xisbigu saameyn kuma yeelan karo waa xisbiguna waa xisbi awood qaybsiguna waa misayr shacab weeyaan oo aan raadinayno oo ku tala jirno nuka hawlanahay sida darteed marka saameyn kuma yeelan karo xisbi misayr shacab oo misayrka shacabba ka awood badan xisbiga shacabkan wax doonayay waa dadkii xisbigan hadhow cod ku soo doonan lahaa weeyaan sida darteed hadii misayrkii shacabka meesha laga saaro jiritaanka xisbiguna wax sii jiri doona ma noqon karto aqoon-yahan Axmed Siciid waxa kale oo uu ka hadlay hawlo shaqo oo guddiga komishanka doorashooyinku ay ka wadaan guud ahaan degmooyin ka tirsan gobolka arinta komishanku waa ku dhaqaaqay waxay la mid tahay arintii maxkamadda sare ay wax ka bedelka iyo kaabista ku sameysay xeer sharci dejin soo saartay ee qaldanaa bay la mid tahay anaga xaga uma inaga taagan tahay hadii ay ku sii socdaan komishanku arimaha imka ay wadaan hadii ay ku sii socdaanna waxay sababi kartaa dab aan baqtiintiisu fududaan doonin sida darteed yaani komishanku waxyaabaha imka ay faraha kula jiraan ee arimaha reer Awdal hadii yaani ku sii soconin digniintaas aan u diraynaa komishanku aan ka waantoobo waxyaabaha imka faraha kula jiro hana u waantoobo ummadan masayrkeyga rabta yaanu faraha la soo galin maadaama ay wax tabanayaan hadii kale wixii amniga oo ku yimaada iyaga mas'uuliyadda qaad Axmed Siciid ugu dambeyntii maxaad bulshada reer Awdal aad ugu baaqaysaa ugu dambeyn waxaan leeyahay bulshada reer Awdal hayno inagu qorsheeynu waa qorshihii awood qaybsiga ahaa iyo xuquuqdeena maqleyd baynu walaalayaal raadinaynaa aynu xusul duubnaano وأنه كبراركسنان وسائل حقنا ورثنا هين. شدور يلا بعتن سنوات أيو قبل كان حقوقي سواء مقنعد ما أنت صدق سنوات دم به الحقوق قبل كم سنة مقنع كرتو. سيادرتي وحال لو نجبه هي هنا إنه ضمير فيه كأجنا مستقبل كجيل شيء ساكرية
iyo mustaqbalkeennaba marka waxaan soo idin soo jeedinayaa shacabka dhammaan haddii ay gudaha joogaan iyo haddii ay dibadda joogaanba inay u midaysnaadaan arrimaha aynu raadinaynay awood qaybsiga haddii aynu maanta wax ka qaban weynana berri meel kale gali doontaa aynu ka raadin doonaa sidaa darteed waxaan idin soo jeedinayaa dhammaan shacabka in arrintaasi nin waliba wixii uu kaga qayb qaadan karo uu kaga qayb qaato lagana midaysnaado fikirka odhanaya in gobolkan awoodiisii dib loogu soo celiyo Axmed Diriye Ciiltire wararka warbaahinta SBC